dhaankii weynaa ee ay shirkadda maakhir muddada dheer ka waday degmadan ceelbe ee gobolka Sanaaga ay ugu tala gashay inuu biyaha uu qabto ay bulshaduna ka faa'iideysto ayaa maanta xarig jarkiisii wuxuu ka dhacay dhaankaasi waxaana ka soo qayb galay munaasabadii xarig jarkaasi odayaal waxgarad haween golaha deegaanka degmadan ceelbe ee gobolka Sanaaga iyo waliba qurub joogta gobolka Sanaag xarig jarkaasi ayaa markii ugu horeysay waxaa ka hadlay maamulaha shirkadda maakhir faraca degmadan ceelbe ee gobolka Sanaaga سعيد عبد الله ميراء وحلا بلابي أكتوبر شريو طبان كادي لبادا كونو يتضوي طبان كي وحيدا ماتي أكتوبر صدن كادي لبادا كونو سدير طبان كي وحيدا وأفر بقولو مترو اسكويرة أفر ديبنا waxay u tahay afar mitirna waa dhiibka waxay qaadaysaa dhowr boqol oo kun oo booyadu waxaa ka hadlay golaha deegaanka degmadan ceelbu iyo waliba waxgaradkii iyo haweenkii ka soo qayb galay xarig jariskaasi ay shirkadda maakhir maanta ay dhaankaasi xarigii ay ka jirtay waxaynu u mahad celiyeen ugu horeys ilaahay bacda salaan waxaan u mahad celinayaa ganacsade Faysal Cali Xaashi oo inoo hirgeliya dhaamka weyn Faysal waa nin qurba joogta dalka dib ugu soo noqotay oo farakutiriska ayuu ka mid yahay wax badan oo ganacsiga dalka ayuu ka sameeyay marka maantana dhaamkan ayuu qoday hore hormaynteeda iyo waxtarkeeda ninkii ka qayb qaatay waa u mahadnaqayaa ka qaybgalkan maanta xarig ka jarideedu joogona cidda ka soo qayb gashay waa u mahadnaqayaa marka ilaahay hayna ku anfaco faa'iidadeedana ilaahay haynoo raajiyo ilaahayna raxmad khayr qabta haynoo ku soo shubo waad aragtaan maanta biyo kuma jiraan laakiin waa loo diyaariyay iyadoo aan jeclaa maanta inay suuq buuxa inuu xariga ka jaro haddana insha Allah waan rajaynaynaa inuu buuxsamo si dhaqso ah waxaan u mahad celinayaa ilaahay nabadgelyada keen isugu keenay halakan tan labaad waxaan u mahad celinayaa mulkiilaha oo hantida badan geliyay wadanka oo waliba ilaahay markiisa raga qurbaha ka yimi oo farakutiriska oo maal gashaday wadanka gudihiisa waxaan leenahay isagana jasaakallahu khayr in badan insha Allah sidan oo kale u maalgashatana waa rajaynaynaa wadanka mid wadanka joogo dhaqaalaha iyo mid qurba jooga intuba tan kale waxaan kula talinayaa kulli mulkiiluhu meeshu noqon kobcishiimo ee ay noqoto meel production leh oo biyo in laga dhaansado kaliya ma aha lagu beero wax dadku cuno oo khudaar rahmatullahi wa barakaatu dhamaan horta waxaan salaamayaa soo qayb galayaasha sida wanaagsan ee muqaymisan kala soo qayb galay harada tan aan maanta bilowgeedii hore nimi haddana dhamayskeedii aynu nimi oo aynu maanta ka qayb galnay ayaan maanta aad iyo aad u taaganahay aan halka u taaganahay inaanu ka mahad celino yani fikirka iyagana ka dhiibano baanu ku rajoweyna horta hore iyo horaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa marka labaad Faysal Cali Xaashi inoo soo tagay maanta halka isugu nimaadno waa u jeedaan meesha aynu taaganahay waa haradii aynu bilowgeeda weyn naga hirgeliyay magaalada Ceel waxaan marka koowaad iyo mar labaad bogaadin iyo mahad celin iyo dhiirigelin buu soo jeedinayaa mulkiilaha harada Faysal Cali Xaashi waxaan leeyahay hore u soco waxa kaaga imanaysa bulshada dhaliilo badan waxa kaaga iman kartana dhiiriye gelin badan waxaan ku leeyahay marka markasta waxaad ka qaadataa dhiirigelinta waayo midpointiga magaalada u baahnaa qaataabatay baan leeyahay oo ah dhaamis biyo dhaamis ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Ceelbu Axmed Cali Salaad ayaa isagu xarigii ka jaray dhaankaasi oo markaasi ugu bishaareeyay bulshada ku nool degmadan Ceelbu gobolka Sanaag inay ka faa'iideystaan mahadna uga celiyay hantiilaha shirkadani maakhir Faysal Cali Xaashi waantana xaalkeedii ku dhamaaday ilaahay idankii wixii laga qabtay iyo wixii lagu sameeyay iyo wixii loola jeeday
oo khayraba laga helayo xariggeediina in la jaro ay maanta noqotay ujeeddo kale oo ay leedahay ma jirto waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur telefishinka caalamiga s b s t v degmada ceelbo ee gobolka Sanaag.